maalin maalmaha ka mid a ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariish ee markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuula allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu ina alquluuba la tasda kamaa yasda'u alxadiidu idaa asaabahu almaa birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu qalbiga bini aadamkuna daxal buu yeeshaa maxaa qalbiga daxalaynaya waxaan adeegaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbiguu saamaynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatlqalbi bay culammadu yidhahdaan waxaad eegto qalbiguu galaa waxaad ku hadasho qalbiguu galaa waxaad ka fikirto qalbiguu galaa waxaad dhegaysato qalbiguu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culammadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheegsheego la xasuusto laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajidooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayey sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiyey buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiyey dhahada haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeya dhahada innamaa buniyat almasaajidu limaa buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weynaynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynee kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari raac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo way soo baxayeen
haddana maalin kale uu yidhi namar iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi ibnu cumar in cumar bnu khataab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bna cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkanina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd markaa ibnu cumar baa ku yidhi waree kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno un baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan 100 qof baan u ducaynaynaa 100kaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa 100ka awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteenu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa 100 qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhexmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhergayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birtaa arsaaqadda kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu yidhi arsaaqadda way kuu furmiyeen meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisay u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiro aan ku dhargno ku libaano marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa
waxaan aniga lahaa baa isku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga alle iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iska leh iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwa da waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogtaa xoolaha dawladda iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee annakaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysana waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahidu ha nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa lanaga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wa hiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah cuثmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel la yidhaah oo cuثmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyaday la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahinde
ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay oo u yimiday uu salaamay wuxuu yidhi amiirkii mu'miniinta cuhmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogtoon bay doonaysaa hayga tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa laysiiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimida cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaraddan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi uu iska kacay cusmaan baa ninkii u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socda buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebigaa ii kaa soo diray buu yidhi sal alla alay sl oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxau nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegayse buu ka yidhi faynuuskaas
faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen inagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا ورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياضة السوق يقع نوح كوي بين كرام مجرب عمر ورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصبت بالوضوء تشاين يا تايلاند بلغوا الدولي هبريه بقى سعودة كلها تشاين هاو سعودة حاجة نسعنا والمؤمن وحلا دونا هنا نقطة مؤمن لا بد أن نودع كوكوتا إلا أدوية هذا كويعو إلا آخر هذا كويعو آخر هذا هنا أدوية كوسجن أدوية وإنير وحن جوجنا إنير ولا ليال إنت هير إن جوجنو إلهي هكذا بغنو ودين هكذا قادنو ودين تنا هم برنو ودين تنا هكذا شقينو وزمن هذاك بالجوجرا زمن كيل الجوجرا المتمسك بدينه كالقابض على الجبر أبو نبي قولي والزمن النبي محمد سيشاقي كون يافر بقوله سنة كهر نيجا دين تمالين تاري على وان حج السن وحاوكد لقنان دونا نندا معلو دي بيبو رسول كيولي بالشدة تكون نوشا ما انت ايك ومجتمع خير كوغو يرادي شركو بطي ما شادو بحضا با شادو حيكون عيسى ما وحي إلهي كفرحية بس وحي إلهي كعريسية مجتمع ومجتمع قفكو هدوين على ما أنت صنع النبي كفر عليك وأتكان يسألوا قبصدوا إلهي يقول نبي ريمو يعني مركز زمن هذاك بانكو جرنا وحن كقبت بعدين ومحي رجوع إلى الدين إن الدين تنوصل نقولنا ودذلك الدين تاع علماء مر والبين وقوب باقيان مساجد اللي قلنا هذين أيو مراكز اللي قلنا هذين أيو مدارس اللي قلنا هذين أيو اجتماعيات الله قبنا أيو ومد الله كل لو فكر أيو وردالك الدين هذا ما أنت عالم كالسعوداء للرباع عامده إنه إنه علماء أنت قرب جوكسته أن ملك اليهود جسد إن شاء الله هذا تام قدونا دالك الدين تا بس دقيستيال وناكسن ما نقولنا يا دقيستو وناكسن لوحة كوناكسن دقيستو من الدين ويان لكن وحال إن النقطة أديك الله قربا إن الدين تقيبت الله كقالته waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay u geliyay umadu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu umada wax ku taray kii dhaqaale lahaa dhaqaaluhu umada wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu umada wax ku taray kii wajahad lahaa wajahadiisu umada wax ku taray Usmaan bin Affan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiya waa ka cudur daartay Umar wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba buu عثمان باكو مناسبة عثمان بن النبي يقول دل ورنتي عثمان هذا تج خالد بن وليد جيس النمدي الرجل نمدوا لها ومدوا وحكوا تري ما أنتوا صو إسلامي بن النبي سيفت أوكيني سيفت نيجا قبض بيقول لا هنا بدا في ويدي معان كاكا قاعد سيفت يشك أنت أصلا مسلمين كلها يبوا كيري كاقا ما يه أنت المسلمين كلها يسي إن كبدا إن العدو إلهي كل إنسان كاقر رجيني قال بودي سيفت إلهي دين تسوي جهاد والله رجل ما دي بحاجة كلا الله بدل بس كي عالم كها علمه مدى كو أنفعي كي دقال لها دقاليه سو مدى كو أنفعي زمن كي النبي عليه الصلاة والسلام وحو نبي ديارية أمد نول بسلاحية كجرتا لا استعمال يدين تدال كيغا مركا إنكونا كل جين إن شاء الله تعالى خير باين نجم مغدا خير جعل باين نجم مغدا ده إن شاء الله دالك دينتا
dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegay macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelmadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyey in sha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysa anu marti kumahiya waan deganahay ya deganahay ma sha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل